There are many people in the KGB, like in the armed forces. balqiyaas inaad tahay sargaal KGB ah oo ku jira meel laga cabsi qabo Moscow dagaalkii qaboobaa ee dunida qof kasta waa la tuhmayaa telefoon kastana waa la dhageysanayaa derbiyaduna waxay u eg yihiin kuwa ku dhageysanaya oo dhaqdhaqaaqa la socda mid walba oo salaanto waxa laga yaabaa inuu yahay basaas adigu basaasaya hadda balqiyaas adigoo gudaha ugu jira nidaamkaas cabsida badan haddana si qarsoodiya u siinaya cadowgaaga xoogaha ugu sirta badan ee dalkaada tani waa sheekada Oleg Kordiovsky nin maskax ahaan iyo halgan ahaanba dunida sirdoonka gilgilay basaas KGB ah oo u adeegi jiray MI6 Ingiriiska noloshiisu waxay ahayd halgan u dhaxeeya daacadnimo khiyaano iyo nolol uu mar walba ka baxsanayay daqiiqad kasta dil toogasho waxaan caawa soo qaadanaynaa qisada iyo sheekada basaaska aynu kasoo sheekaynay haddaynu ka horeyno taariikhdiisii magaciisu waxa weeye Oleg Volodymyrovich Kordiovsky wuxuu ku dhashay Moscow sanadii 1938 wuxuu ku koray qoys KGB-da u heelan oo aad u taageersan aabihiis iyo walaalkiisba waxay ahaayeen saraakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka Sofiyeetka ee lagu magacaabi jiray KGB markii Oleg yaraa wuxuu ku riyoon jiray inuu mar uu noqdo geesi qaran oo dalkiisa u halgama sida aabihiis iyo walaalkiis waxaana la baray in KGB-du tahay garabka ilaalinaya awoodda iyo karaamada midowga Sofiyeet markii uu dhameeyay jaamacadda Moscow isagoo bartay taariikhda iyo siyaasadda reer galbeedka waxaa si toos ah loogu diray tababarayo inuu noqdo basaas KGB-da ka tirsan waxaa la baray xeeladaha basaasiinta iyo sida loo akhriyo dadka iyo sida loo burburiyo cid cadawgaaga ah iyo sida loo abuuro khiyaano aan la fahmi karin iyo dhagaaraha halista ah ee loo adeegsado cadawga laakiin waxa uu lahaa hal daciifnimo oo KGB-du aanay ogeyn taasi oo ah jeclaanshaha madax bannaanida iyo su'aalaha isweydiinta faraha badan leh dabayaaqadii 1960-yadii Oleg waxaa loo diray safar dibadeed oo shaqo ah isagoo la geeyay Copenhagen caasimadda Denmark markii ugu horeysay ayuu arkay Yurub ka duwan dalkiisa waa Yurub ay ka jirto xorriyad iyo dimuqraadiyad iyo bulsho aan cabsi KGB ah ku nooleyn wuxuu la yaabay sida ay dadku ugu hadlayaan si xor ah u fikirayaan si furan taas oo maskaxdiisa bedeshay gabi ahaanba waayo waxa uu ku noolaa dal caburan oo shuuciidu ka taliso oo cadawga la iska eegaya uu yahay reer galbeedka oo dadka ku nool iyo cidda ka shaqeysa dawladda lagu ababiyay in ay iska ilaaliyaan wax reer galbeeda ay xorriyadda qariyaan ay aamusaan caburnaan ka kanaabu ku soo koray markii uu Yurub yimidena waxaas oo xorriyad ayuu arkay wuxuu fahmay in fikirkii Sofiyeetka ee uu aaminsanaa uu yahay mid been ku dhisan markaas ayuu qalbigiisa ku abuurmay necbaanta nidaamka uu shaqeynayo goormuu ku biiray sirdoonka Ingiriiska ee MI6 sanadii 1974 Oleg waxa uu shakhsi ahaantiisa go'aansaday inuu xiriir la sameeyo sirdoonka dibadda ee Britain wuxuu si taxadir leh ula xiriiray MI6 isagoo adeegsanaya fariimo qarsoon iyo calaamado la isku yaqaan markii ugu horeysay ee uu la kulmay wakiil British ah wuxuu siiyay xog muhiim ah oo MI6 ay ku garatay inuu ninkan yahay macluumaad dahab ah iyo diamond dif iyo naadir oo gacantooda soo galay laga bilaabo maalintaas Oleg waxa uu noqday basaas laba kaadla ah dhinac waxa uu ahaa KGB-da hortooda waxa uu ka ahaa sargaal daacada oo halgan u haya dawladdiisa iyo qarankiisa difaacanayna danaha qarankiisa iyo dadkiisa laakiin dhab ahaantii waa basaas qarsoon oo xogta ugu muhiimsan u diraya sirdoonka MI6 ee Britain iyo reer galbeedka Oleg intii uu shaqeynayay KGB-da waxa uu helay xog muhiim ah oo MI6 si qarsoodi u gudbin jiray waxaa kamid ah xogaha qarsoonida ee halista ah ee uu gudbiyay MI6 laysaska basaasiinta Sofiyeetka Yurub jooga qorshaha ay KGB-du qorsheynayso iyo weerarada halista ah ee ka dhanka Britain iyo fikradaha khaldan ee reer galbeedku ka qabeen in Sofiyeetku damacsan yahay dagaal nuclear xogtiisa ayaa MI6 u suurtagelisay in ay fahmaan in midowga Sofiyeet aanu doonayn dagaal toos ah nuclear balse uu ka cabsanayay in reer galbeedku soo weeraro tani waxay ka hortagtay dagaal nuclear oo dhici lahaa
sanadii 1983 markaas oo labada dhinac midba midka kale oo isku diyaarinayay inuu la galo dagaal toos ah nukliyeer. intaynu qaybta labaad ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qaybtan koobaadna intaasay noogu joogi doontaa. waxaan idin xasuusinayaa saaxiibayaal inaad subscribe iyo like iyo share saartaan. mar labaad waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.